nabad idil ahaantiinba ku soo dhawaada channelkan. Halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qiso kooban oo ku saabsan ninkii dadka daweyn jiray. Fadlan intaynaan u guda gelin sheekada, haddii aad channelkan ku cusub tahay, subscribe saar. Mahadsanid. beribay waxay saboolnimo aad u dhibtay nin si walba uu yeelay noloshiisa caadiga ahayd uu maareyn waayay. markii dambe suxun intuu u fakiray ayuu wuxuu isku dayay inuu isdilo. buur dheer dusheeda intuu fuulay ayuu iska soo tuuray. hase yeeshee nasiib wanaag waxba ma gaarin. dhowr jeer ayuu ku noqnoqday buurtii, markasta isagoo bad qaba ayuu dhulka ku soo dhacaa oo waxba ma gaaraan. markii dambe gurigu intuu isku soo xiray ayuu xarig qoorta iska suray oo uu isku daldalay. hase yeeshee markasta xarigga ayaa la soo go'ayay oo waxba ma uusan noqonayn. waa nin aan tiisa geline. maalintii dambe ayaa waxa uu ku tashaday inuu isku tuuro bad. isagoo baddii ag taagan ayaa ninkii waxa u yimid malag Ilaahay u soo diray. markaasuu wuxuu ku yidhi malaggii ninkii badda isku tuuri rabay, niyahow maxaad rabtaa inaad samayso? ninkii ayaa waxa uu ku jawaabay, waxaan doonayaa inaan badda isku tuuro si aan u dhinto, aan adduunkan u dhaafo. malaggii ayaa ku jawaabay, oo maxaa kugu kallifay? wuxuu yidhi ninkii, faqri baa idaashaday oo noloshaydii baan maarayn kari waayey. malaggii baa wuxuu ku yidhi markaa, aniga waxaad ku shaqaysato ku barayee ee ku shaqayso marka aan ku bara kadib. ninkii haye ayuu yidhi oo waa uu aqbalay taladii uu malagga u soo jeediyey. kadib malaggii ayaa waxa uu ku yidhi ninkii, laga bilaabo maanta waxaad daweynaysaa dadka oo dhakhtar ayaadba tahay. qofka jiran ee aad daweynayso haddii aan lugaha ka fadhiyo ayuu yidhi malaggii, ku akhri qur'aan oo dawee wuu raysanayaaye. haddiise aan madaxa ka fadhiisto kaaha isku daalin, waa uu dhimanayaa, ehelkiisana ku wargeli inaadan wax dawaa u hayn. qof kastoo jiran oo lagu keenana ku dhaayuu yidhi, aniga ayaa idiin daweynaya ruuxan xanuunsan. ninkii saboolka ahaa sidii ayuu muddo badan ku shaqaysan jiray oo qofka markaa loogu yeero ee la yidhaahdo kaalay qur'aan ku akhri waxaa istusi jiray malkulmowdkii. hadduu lugaha ka fadhiyo xoolo badan buu ka qaadan jiray, wuuna daweyn jiray. hadduu madaxase malaggu ka fadhiisto qofka markaasi xanuunsan waa uu isaga tegi jiray. maalintii dambe ayaa waxaa xanuunsaday ninkii dadka daweyn jiray. showtiisa dhammaataye wuxuuba arkay isagoo sariirtiisa ku jiifa, malaggiina uu madaxa ka fadhiyo. markaasuu dadkii intuu u yeeray wuxuu ku yidhi, warkaalaya i wareejiya oo madaxayga dhinaca kale mariya. hase yeeshee markii madaxiisa la soo wareejiyaba malaggiina wuu la soo wareegayay oo weli madaxa ayuu ka fadhiyaa. si walba dhinac walba haddii loo jeediyey madaxa ayuunbuu ka fadhiisanayaa malaggii. waxaanay dadkii arkayn ee isagu keligii u arkayo ayuunbaa u muuqda. sidii uu u lahaa ilmihiisa, waryaada i wareejiya, maxaad ii kor taagantihiin, ayay naftii ka baxday. haddaba dulucda sheekadan waxaynu ka qaadan karnaa, naf ma go'do ilaa inay ajasheeda timaado mooyaane. weligaa ha rajo dhigin, hana isdhiibin. mar walba oo aad la kulanto murugo, u jeeso xagga rabbiga, isagana tala saaro. weligaa ha isdhiibin. haddii aad channelkan ku cusub tahay, subscribe saar. mahadsanid.